بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، waxaan kalimaad kooban ka odhan doonaa xawla tarbiyati اlanfus aw taskiyati اlanfus. kelimatu tarbiya waa kobcin, barbaarin iyo hagaajin fi luga alcarabiya. kelimatu taskiyana waa ku macno dhadhowde. aلzakaa aw taskiya waa aلطahaara والنماء والبركة. qur-aanka inta badan lafdu taskiya ayaa ku soo arooray. lugadan mucaasirka inta badanna dadku lafdu tarbiya ayuu adeegsadaa. nafta in la rabeeyo waa qadiyad aada u muhima oo aan odhan karno waxay ka mid tahay usuusha risaalada ilaahay uu soo diray, ama rususha waxyaabaha alle uu ku soo dejiyey subxaana wa tacaala ee usuul risaala ah ayay ka mid yihiin. bale waxaan odhan karnaa afarta shay ee ilaahay uu ku tilmaamayay shaqadii nebiga inay uu qabto inay ka mid tahay mid ka mida masalada tani. inta ugu badan leh markaynu ka waramayno tarbiyati nufuus, qofka bini aadamkahay wuxuu ka kooban yahay jasad ama qolof sare, ruux ku jirta, caqli, qalbi iyo naf bay sheegaan. si kale haddaanu tilmaamno qeyb muuqato iyo qeyb qarsoon buu qofka bini aadamku ka kooban yahay. qeybta muuqato dadku inta ugu badan leh waxay siiyaan ictinaa tiro badan leh. sidaa awgeed kama warami doono atarbiya aljasadiya ama sida jidhka loo kobciyo, waayo bini aadamku masalada waa ku mashquul. oo jasadka qofka bini aadamka ah hadduu gaajoodo isagaa cunada markiiba kula degdegaya, hadduu xanuunsado dhakhtar baad kula cararaysaa, hadduu dhaxmoodo markiiba maryo waaweyn baad ku huwinaysaa, waad dadaysaa, hadduu kululaado waad qaboojinaysaa. yacni qof kastaaba waxaad moodaa inuu tarbiyada jasadiga ama jidhka iyo sida loola dhaqmayo in ahmiyad weyn la siiyey, in badanna dadku uu ka wada shaqeeyo, bal in lagu dadaalayo yacni muuqaalkiisa sare siduu u qurux badan lahaa. qadiyadda ka muhiimsani laakiin waxa weeyaan nafta bini aadamka ayaa saa loo tarbiyeeyo. jasadka tarbiyadiisa iyo sida dadku u kala qurux badan yahay ama u kala xoog badan yahay ama u kala caafimaad badan yahay ilaahay dhawaanshiyihiisu kuma xidhna. walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayay xadiiskii saxiixu muslimka ku yaalay, ina allaha laa yandur ila suwarikum walaa ila ajsaamikum. yani nabigu wuxuu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh, ilaahay ma eego muuqaalkiina inta aad qurux leegtahay ama inta aad xoog leegtahay ama inta aad caafimaad qabto lama eego, walaa ilaa ajsaamikum, iyo jidhkiina toona baan la leeyahy subxaana wa tacaala siduu nebigu sheegayo, walakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum. wuxuu alla eega subxaana wa tacaala quluubtiina waxa ku jira caqiide ah ama iimaana ama diina ama caafimaada, iyo bukaanka ay qulubtaasi bugto ee shirki, nifaaq, gaalnimo, wixii la halmaala
xaasidnimo iyo wax allaaliya waxa xumee macaasiya diintu ay sheegtay waxa ku jira. idan qalbigaaga waxa ku jira iyo camalka kaa soo fulaya kaas baa maxallu nadarka. si awgeed baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankaba ku tilmaamayay munaafiqiin jir xoog waaweyn leh. waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilahay yidhi, haddaad eegto niman munaafiqiina ilahay ka warramaya wuxuu leeyahy muuqaalkooda sare iyo caafimaad qabkooda iyo xoogooda iyo feedhahooda markaad aragto waa ku cajab gelinaysaa baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala. wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanada, laakiin aqwaashooda iyo acmaashooda iyo afcaashooda iyo muctaqidaadkooda ayaa nijaaso ah, kuwaasaa xun. idan islaamku waxa koowaada uu eegaa ama waxa ictinaaga badan mudani ama waxa u baahan inaynu in badan isku boorina ma aha tarbiyada jidhka aan kama warramayo, inta uu qofku xoog leegyay maaha. walidalik ba waxay culamadu tilmaamaan cabdillahi bnu mascuud oo yani saxaabada ninkuu ahaa la garanayo, jidh ahaan bay yidhahdaan nin aada u tamar yar oo daciifa buu ahaa. maalin isagoo meel koraya dhudhumadiisu adimadiisaa muuqday, adimadiisa fiiqfiiqnidiisii bay saxaabada bar ku qosleen baa la yidhahdaa. markaasu wuxuu ku lahaa tacjabuuna min diqati saaqay ibni mascuud, ma dhudhumnida saaqa ibnu mascuud baa ku qoslaysaan buu ku yidhi. waladii nafsu muxammadin biyadih lahuma fi lmiisaani cinda allahi asqalu min jabali uxud. ilaaha nafta moxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye miisaanka qiyaamaha kuwa fiiqfiiqan ee arkaysaan ayaa buurta jabal uxud kaga culays badan ilahay miisaankiisa buu tilmaamaya. yani nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegayaa adimadaa iska fiiqfiiqan aa arkaysaan ilahay agtiisa wasniga iyo miisaanka ay ku leeyihin jabal uxud inuu ka culus yahay. sida awgeed waxaan leenahay meesha u baahan inaynu in badan tarbiyayno, u baahan inaynu isweydiino, u baahan inaynu eegna waa taskiyat alanfus, waa nafta in la daahir yeelo, in nafta lagu rabeeyo cibaadada ilaahay, tawxiidkiisa, dhaqanka suuban iyo wixii janno kuu dhaweynaya. in nafta laga koriyo oo laga weynaysiiyo waxa hoos u dhigaya, waayo gaalnimadu iyo waxa ku xeeran ee nifaaq leh, ee macaasi leh, ee shahwaatu nafsi leh, ee acmaasha qofka naarta qabadsiiso o dhan marka la isku wada daro waa acmaal aada u liidata oo qofka darajada bini aadamnimo intay hoos uga dhigto meel hoose geysa meel uu dhagaxa la qiimo noqdo. waayo waxaa lagu tilmaamayay dadka ahlu naarka iyo maxaa lagu wada shidaa, dadka iyo waquuduha annaasu walxijaara, dad iyo dhagaxba waa dab baa la yidhi. idan bini aadamnimadii uu ka soo dhacay maqaamkii axjaartuu joogaa, isaga iyo dhagaxaa dabka lagu wada hurinaya. idan waxa u baahan inaynu in badan ka fakerna waxa weeyaan qofka bini aadamkaa sidii loo rabayn lahaa, qof waloo muslimo siduu isu kobcin lahaa, siduu iimaankiisu u kori lahaa, sidai caqiidadiisu u kori lahayd, sida akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaagsani u kori lahaa. ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisa waxaa ka mid ah inaan dembigu korkeena ka soo urin inta aynu nool le ilahayna asturay. walidalik ba waxaa laga sheegaa axad alculamaai zuhaad moxamed ibnu waasic nin la odhan jiray oo salafkii hore ka mid a, raggii cibaadada badan lagu tilmaami jiray ka mid ah, ayaa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi law kaana, wuxuu ninkaasi leeyahay law kaana lidunuubi raa'ixa, haddii dembigu iyo macaasidu ay ur yeelan lahayd buu yidhi ma istataaca axadun an yujaalisanii, cidna ma awoodeen buu leeyahy inuu ila fadhiisto. ilaahay baa ina asturay, waa min nicmati. ilaahay baa ceebteenna qariyey, ina asturay. laakiin waxa kaa horeysa maalin ceebtaasoo dham ay faydmi doonto, bal markaad dhimataabaa urtu bilaabantaa. walidalik xadiidkii ka warramayay nafta marka la qabtiyo meesha la qabadsiiyo waa kuu nebigu ku tilmaamayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. qofku markuu dhinto, qof saalixa hadduu ahaa ruuxdiisa kor baa loo qaadaa, dabeetana malaa'igta lala soo agmaraaba uduggiisay ka yaabaana waxay dhahdaan ruuxdan ayibka ahayd yaa leh, ruuxu man haadihi ayiba bay dhahdaan, waa ruuxdan uduga fiican le meesha la wado waa kuma baa la yidhaahdaa. waxaa loo sheegaa inuu yahay fulan oo ilaahay addoonkiisa iyo qof saalixa ahaa. haddii lasoo mariyo mid kaafir ama munaafiq ama ahlu macaasina, malaa'igtu way ku dhibtootaa ruuxdiisa urteeda iyo qurmuunkeeda. deetana waxay dhahdaan ruuxdan muntanka ahi
xadiisku wuxuu tilmaamaya waxa la soo maraya iyadoo ah maxay ka antani jiifa iyadoo ah bakti ka u qurmun iyadoo kasii qurmun ba lasoo agmariya dabeetana waxay yidhaahdaan warkan habaarqabaahee qurmuunkiisii aan ku dhiftoonnay muxuu ahaa idan waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahi inaanu dusha iska catrin uun dusha iska maydhin uun dusha iska nadiifin uun laakiin inuu nadiifiyo qalbiga iyo hoostiisa iimaankiisa inuu nadiifiyo qulubtiisa waxa degaya inuu nadiifiyo akhlaaqiyaadkiisa inuu nadiifiyo nafta in la rabeeyaaba loo baahan yahay si aanay ilaahay agtiisa taa qurmuune uraysa u noqonin si aanad u noqonin kuwaasi malaa'igtu ay ku dhib mudato si aanay u noqonin aakhiro kuwaasi ceebtooda ay qarsoomi weydo si awgeed waxaan leenahay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya kama arsalna fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum ma lam takunuu taclamuun aayad kale ilahay wuxuu leeyahy laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin yani aayaadkaas waxa ilaahay subxaana watacaala inoogu tilmaamaya iyo aayaadka kale badan ee lamida qur-aanka ku jira huwa aladi bacata fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin afar shay baa ilaahay ku tilmaamaya risaalada ilaahay uu inagu manaystay iyo rasuulka uu soo diray shaqadiisa koowaad salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ilaahay ku tilmaamaya inay tahay talaawat lkitaab qur-aanka ama hadalka ilaahay in laynagu dul akriyo hadalka ilaahay oo balaaga liyundirakum bihi waman balag hadalka ilaahay oo kii laynoogu digayey kii khayrka iyo sharka kala tilmaamayey kii jannada iyo naarta kala sheegayey kii waxa xasan iyo waxa xun kala sheegayey kii adduunka la raaciyo ariiqii saxa ahaa ee nolosha lagu maamulanayay ahaa yatlu calayhim aayaati ka labaad waxa ilaahay uu ku tilmaamaya wayuzakiihim ama wayuzakiikum altazkiya aw altarbiya aw altanqiya aw altahiir kii in laydin daahir yeelo maxaa la iska daahir yeelaya waxa lagaa daahir yeelayaa shaytaan iyo nijaasadii waxa lagaa daahir yeelayaa nafta iyo shahawaadkeeda waxa lagaa daahir yeelayaa kufriga iyo waxyaabaha xunxuna ka ratibma waxa lagaa daahir yeelayaa muctaqad iyo camalba wixii xun wax la aamino kufrigu waa nijaas inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi mushriku waa najas baa ilahay yidhi najas lagama waramayo cayniya lakin waxaa laga waramaya annajaasa almacnawiya ilahay kownkaba lahaa ciddii garan weydaa qalbigiisu daahir maaha idan waxaa nebiyada ilaahay uu usoo diray rususha u timi waxaa kamid ah mas'alatu tahiir aw mas'alatu tazkiya taskiyat alanfus in nafta la daahir yeelo oo laga daahir yeelo gaalnimo oo laga daahir yeelo nifaaq iyo munaafiqnimo oo laga daahir yeelo istusnimo oo laga daahir yeelo ismaqashiin sumca iyo riya oo laga daahir yeelo wax allaaliya wixii xun oo dhan ee xaasidnimo ah ee cay ah ee wax allaaliya wixii dhaqan iyo akhlaaq xun oo dhan in laga daahir yeelo idan wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin iyo inuu idin bara baa la yidhi alkitaab wasunna afartaas shay baa nebiga loo soo diray tabliiq inuu sameeyo ama talaawat alkitaab dadka inuu xujada ku oogo inuu taskiyeeyo iyo inuu cilmi u kordhiyo oo cilmu alkitaabi wasunna inuu dadka baro sida awgeed baa xataa nabiyullaahi ibraahim ilaahay markuu baryayay wuxuu ku ducaynayay maxay rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim ilaahay markuu baryayay nabiyullaahi ibraahim wuxuu lahaa ilaahayow waxaad ka soo saartaa dhashaydaasi rasuul iyaga ka mid ah oo yatluu calayhim aayaatik aayaadkaaga ku akriya kitaabka bara sunnada bara wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim taskiyeeyo naftooda daahir yeela idan mujtamaca rusushu waxay u timiba waxaa ka mid ah dhaqanka xun iyo akhlaaqda xun
oo ay ka mid tahay diin la-aanta, oo ay ka mid tahay akhlaaq xumo dhammaanteed inay dadka ka daahir yeelaan. walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii bukhaari oo adab ilmufradka ku soo arooriyey, imaamu axmed iyo xaakimna ay soo aroorinayaan, xadiis saxiix ay culimmadu ku tilmaamayaan bimajmuuci turuqi. waxa uu nebigu leeyahy inamaa bucistu liutamima saalix alakhlaaq. inamaa bucist, waxa la ii soo saarayba waxa weeyaan buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, inaan dhammaystiro akhlaaqda keeda fiican. akhlaaqda laga warramaya waxa weyaan alkhuluq maca allah wa maca alkhalq dhammaanteed. ilahay sidaad ula dhaqmayso, ilahay waxaad ula dhaqmaysaa inaad rumayso, isagoo kuu nimceeyey inaad ka gaaloobin, isagoo ku abuurtay inaad ka gaaloobin, inuu wuxuu nimco ku siiye aada ugu mahadnaqdo, nicamkiisu inay yihiin waxaan la koobi karaynin, inaad makhluuqaadka cidnaba la simin, isaga sidaad uga baqato inaad cidna uga baqin, siaad isaga u rajaynaysa inaad cidna u rajaynin, dhib kastoo ku qabsata inaad isaga kula erato aanaad cid kale ula kicin, inaad dareento ilaahay inuu huwa alghaniyu yay wa naxnu alfuqaraa, inana kuwa baahan inaynu nahay. khuluqa loo baahanya inaynu ilaahay kula dhaqana subxaana wa tacaala waa ka khalqiga sidaynu ula dhaqmayno, oo ah inaad dhaqan wanaagsan, dulqaad, akhlaaq fiican, run sheegid, been ka dheeraasho, xanli'i, carabku aana dadka ku dhibin, waxaasi oo dhan aad ku dhaqato. idan ambiyadaba waxaa loo soo diray siduu nebigu sheegayo inay dhammaystiraan saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq, akhlaaqda keeda fiican inay dhammaystiraan. idan waxay leenahay nafta in la tarbiyeeya waa mas'ale aada u muhima. sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dhaaranaya. culimada qaarkood waxay tilmaamaan waa meesha qura qur-aanka ay ku soo aroortay bay dhahdeen 11 dhaarood oo isdaba ah: waashams waduxaaha waalqamari ida talaaha waalnahaari ida jallaaha walleyli ida yakshaaha waalsamaa'i wama banaaha waalardi wama طaxaaha wanafsin wama sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dasaaha. ilaahay wuu dhaartay 11 goor buu dhaartay. markuu 11 goor dhaartay buu wuxuu sheegayaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. qad aflax, aakhira wuxuun baa liibaanay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. man zakaaha ay man taharaha wa naqaaha, ciddii nafta tan tarbiyaysay ee uskaga oo dhan ka ilaalisay. uskagan saree jidhka qabsada maaha, waa uskaga qalbiga ku dhega, ee ruuxda ku dhega, ee nijaaseeye qofka hoostiisa, ee khabiis ka dhigi kara, ee naar geyn kara. wixii naar geynayay qofku inuu ka dheeraado. saa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. waxaa hoogay baa la leeyahy subxaana wa tacaala man dasaaha, cidda aasta, cidda nijaasaysa, cidda fogeysa, cidda kharaabisa, cidda aan zakaynin, ciddaasaa hoogtay baa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya. waxaan leenahay nafta in la tarbiyeeyo la tahiraa waa bacda tawxiid waxyaabihii ba ilaahay uu kusoo diray ambiyada baynu odhan karna. walidalik baa fircawn markii loo soo dirayey nebi muuse, markii la yidhi fircawn u tag, ilaahay muxuu ku yidhi maxay ku dheh? faqul hal laka ila an tazakka waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha. waxaa la lahaa waxaad ku tidhaahdaa war ma waxaa loogu soo diray inuu taskiya siiyo, inuu ku taahiro, inuu nadiifiyo. oo maxay ka nadiifiyo? inuu ka nadiifiyo gaalnimo, inuu ka nadiifiyo akhlaaq xumo, inuu ka nadiifiyo dhaqan xumo. waxaan leenahay marka taskiyatu nufuus waa waxa lagu helo jannada meelaha sare, booska sare waa waxa lagu galo. nafta oo aad tarbiyeyso, oo aad tahirto, oo aad dhowrto oo ilaaliso. walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay waman yaأtihi mu'mina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakkaa. ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala qiyaamaha cidda timaada iyadoo iimaan leh iyo camal saalixa,
kuwaasi waxay leeyihin adarajaat alculaa fi ljanna, booso sare, darajooyin sare janno ka helayaan. waxay leeyihin baa ilaahay leeyahay jannada nagaadiga ee webiyadiiyo hoos dareerayaan waa ku waarayaan, laakin yaa abaalmarkan leh, wadalika jazaau man tazakkaa weeyaan. waa abaalmarka uu helayo cidda markaasi taskiyat ilanfus samaysay ama nafta tantahirtay. sidaa awgeed nafta iyo tahaaradeeda iyo ilaalinteedu iyo tarbiyadeeda iyo useejeedkeedu waxay u baahan tahay wax badan. walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay baryayey. ducadii nebiga waxaa ka mid ahaa allahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha. wuxuu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh allahuma aati nafsi taqwaaha, ilaahay ow naftayda alle kacabsigeeda sii, wazakiha anta khayru man zakaaha, ilaahu naftayda tahir buu leeyo hagaaji, adigaa mid hagaajiya ugu fiicane. idan waa masaladaa keensanaysa culays waxay ka qabtay in ilaahay uu nebigu baryayey oo uu weydiisanayay in ilaahay subxaana watacaala naftiisa uu u rabeeyo, u kobciyo oo u hagaajiyo. bale qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddaan masaa'ilkaasi alla kuugu gargaarin inaad saaqidayso. si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahy walawlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa. waxa ilaahay qur-aanka ku leeyahy walawlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh, haddii lala yahay ilaahay naxariistiisa iyo dheeraadkiisa lama la'a, oo waa ka ilaahay waxyiga soo diray ee rususha soo diray ee haddii kuwaasi lala yahay ma zakaa minkum min axadin abada, qofba idinkama nadiif noqdeen baa ilahay leeyahy subxaana watacaala, cidiba idinkama hagaagteen. walakina allaha yuzaki man yashaa. idan taskiyat ilanfus waa wasaaisha lagu helo waxaa ka mid ah inaad ilaahay barido subxaana watacaala. in badan in alla la baryo oo aad ilaahay u baryayso inuu nafta ku caafimaad yeelo. yani dadku inta badan marda alajsaamka way dareemaan. qof xanuunsanaya markaad u timaado markiiba waxaad odhanaysaa maxaa dhakhtar loogu yeedhi waaye, qofka maxaa loo baadhi waaye, maa dhig iyo saxariya kaadiya kan laga qaado, maa dhakhtar loo geeyo, maa kiniin la siiyo, waayo jasadkan baa kuu muuqda bukee jiifa. waxa ka geeri xunka qalbiga ka bukee galgalanayaan cidiba la hadlaynin. caqiida xumadu ay hayso, diin xumadu ay hayso, akhlaaq xumadu ay hayso, dhaqan xumadu ay hayso, ee cidda weysana la aan cidiba odhanaynin warkan maa dhakhtar la geeyo, war waa marda alquluube maa loo geeyo cidda qalbiga daweysa, maa loo geeyo cidda caqiidada daweysa, maa loo geeyo cidda akhlaaqda daweysa. qofku dadnimadiisu waa dhaqankiisa iyo caqiidadiisa, maaha qoloftiisa sare wey. intuu qoloftan sare ka leegyahay kama aha dadnimadiisu, ee wuxuu dadnimadiisu ka tahay inta qalbigiisa iimaan ku jira. walidalik bu cumar bn alkhataab ayaa wuxuu lahaa abubakr sayiduna waactaqa sayidina buu lahaa. abubakr waa sayidkaygii bu ihi, sayidkaygii kalena wuu xoreeyey. wuxuu sheegayaa bilaal marka lagu xisaabtamo midabka iyo quruxda iyo xoogga iyo waxaa marka lagu xisaabtamo nin madow buu ahaa xabashiya, waail nimanka kale ay dad quraysh ka dhashay ahaayeen oo cadcad. haddana wuxuu leeyahay cumar bn alkhataab waa sayidkaygii sayidkaygii xoreeyey. muxuu sayid ku noqday? wuxuu sayid ku noqday kuu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh. war bilaalow buu nebigu yidhi, kabahaaga sanqadhoodun baan jannada ka maqlayaaye maxaad samaysaa buu nebigu ku yidhi. bilaal bu wuxuu nebigu leeyahy sanqadha jaqafta kabahaaga ayaan jannada ka maqlaaye maxaad samaysaa buu ku yidhi. ilaahay rasuulkiisiiyo waxba ma sameeyo buu leeyahay, waxaan anigu ku dadaala ma tahaaro la-aada buu yidhi. weysayga ma jabto, haddaan masquul galo ama meel galo ilaba ila waan soo weysaystaa, haddaan weysaystana kolleyba ilaahay baan u tukadaa, wayse bilaa salaadana ma sameeyo buu leeyahy. mar kasta aan weysaystabana waan tukadaa. waa xidhiidhku ilaahay la leeyiyo dhaqan wanaaggu ilaahay ula dhaqmayo ayuu ku gaadhay inuu nebi maxamed kabihiisa sanqadhiisa uu ka maqlo jannada gudaheeda. idan wuxuu sayid ku noqday waa tan, waa dhaqankan iyo akhlaaqdan wuxuu sayidka ku noqday, ee maaha timihiisii jariirta ahaa ee adkaa ama midabkiisii madoobaa ama xabashinimadiisii ma ahayn waxa uu rag kaga sarreeyey. wuxuu rag kaga sarreeyey muuqaalka may ahayne waxay ahayd wixii qalbigiisa ku jiray iimaan ku jiray. sida daraaddeed ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ducadiisu ahayd allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha.
ilaahu naftayda alla kacabsigeeda sii oo adigu ii tahiro ii hagaaji. bale ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo allahuma janibnii munkaraati alakhlaaq walacmaal walahwaa waladwaa. waxaa ka mid ahaa ducadii nebiga inuu yidhaahdo allahuma axsanta khalqi faxasin khuluqi. yani nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ilaahay ka baryey ilaahay oo dhaqanka kiisa xun, acmaasha kooda xun, naftu hawadeeda liidata iyo xanuunada ku dhaca qulubta iyo wixii lamid oo dhan ilah waxaasoo dhan iga fogey. ilah sidaad muuqaalkaygaba u fiicnaysiisay bini aadam iga dhigtay qalbigayga iyo akhlaaqdaydana u fiicnaysi. idan waxaan leenahay taskiyat alanfus, qofka oo nafta tahira. taharadan aynu sheegayna waa nafto khayrka lagu tarbiyeeyo. alluga alcasriya la isticmaalo waa tarbiyat alanfus, waa qofka oo muslimnimadiisa isku daya inuu naftiisa ku rabeeyo, inuu ku koriyo. rabaayada maaha caruurtu waxa la rabeeyaa. qof wal oo muslim wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa tarbiyeeyo. naftu waa xadhig lama sitaan, looma taakilo. waxa ay doonaysaa shahawaat waa iska tiro badan yihin, shaytaanna waa ku lamaan yahay. idan waxay doonaysaa cid hogaanka u qabata. camal kasta oo xun oo aad rabta inaad ka foqda wuxuu kaaga baahan yahay waqti, wuxuu kaaga baahan yahay caziimo iyo go-aan adag, wuxuu kaaga baahan yahay asxaab wanaagsan, wuxuu kaaga baahan yahay diin fiican oo aad qaadato. wanaag kasta oo aad rabta inaad ku dhaqantaa. naftu waxay u baahan tahay in la layliyo. awrka goormaa la rartaa? qaalin yaroo buub oo kaynta iska baraya dee lama rarto. awrka inta lasoo qabto ayaa la layliyaa oo muddaan haama la saarin ee hoggaan qura la baraa oo kaynta la wadaa la ereriyaa oo kolba geyd lagu xidhaa oo sanqadh badan la maqashiiyaa oo ood iyo wax lagu raraa. aakhirka haama lagu raraa, beri dambe hayin noqdaa iyo gurgurshaa. yani awrku maalinta koowaadba ma soo baxo hayin ama gurgurshaa ama wax la iska rarta ma noqdo, ee muddaa la layliyaa. nafta bini aadamki waxay u baahan tahay in la layliyo. maalinta hore salaatuleilka way kaa diideysaa. dadka ha xaman inta ugu taageli maysid, adigoo dhinaca xanta kaga jiro baad sarkaysaa un. heblaayo markay sheekada kuu bilowdo adoo aadna ka jawaabay un baad arkaysaa. waxaasoo dhan nafta waa iska wadaysaa. laakiin waxay u baahan tahay in hogaaninta lagu xidho la wado oo la layliyo oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay usoo urto oo xumuhu qofku uu la xumaado oo iimaanku uu dhadhan la yeesho. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayey iimaanka macaankiisa cidda hesha waxaa ka mid a buu yihi halaathun man facalahuna faqad daaqa طacma aliimaan buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. saddex ninka dhadhamiya, saddex ninka sameeya iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiyey. iimaanku dhadhan macaan buu leeyahy. ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay. walidalik ba axad culamaai salaf waxaa laga sheegaa wuxuu ihi 20 sanadoodna naftaan qasbayay inay salaatuleilka u kacdo, 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahy. dhadhankeedii baan gaadhay. intii hore waan qasbayay buu leeyahy oo hoggaan baan ku hayiyey inaan layliyo, laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaanahu watacaala. sidaa awgeed wuxuu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh halaathun man facalahuna faqad daaqa طacma aliimaan. saddex ninkii sameeya iimaanka macaankiisa wuu dhadhamiyey. man cabada allaha caza wajal waxdah, ninka ilaahay subxaana watacaala keligii caabuda oo waacطaa zakaata maalih طayiba biha nafsuhu fi kuli caam, oo bixiya zakadii xoolihiisa isagoo naftiisu ay raalli ka tahay oo rabo inuu zakaysto, kuwii la yidhi zakayso ee fiicnaa bixiya. wazakaa nafsahu buu nabigu yidhi, oo naftiisana daahir yeela. saddexdaa ninka isku darsada, aliimaanu billah oo ilaahay keligii inaad caabudo, inaad maalka bixiso oo dadkii ilaahay ku yidhi sii siisid, iyo nafta inaad daahir yeesho. saddexdaa ninka isku daraa buu nabigu leeyahy kaasi wuxuu dhadhamiyey maxay? wuxuu dhadhamiyey buu nabigu leeyahy طacm aliimaan, iimaanka macaankiisa. nin baa wuxuu ku yidhi wamaa taskiyatu nafs, oo iimaanka macaankiisu waa maxay baa lagu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo. wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh an taclam ana allaha caza wajal an yaclam ana allaha caza wajala macahu xaytu kaan. waa inuu qofku ogaado maxay? inuu ilaahay maciisayey meel kasta uu joogaba. qadiyat almuraaqaba buu ku sharxay nebigu. taskiyat alanfus marka kan wuxuu ku macneeyey inay tahay maxay? inuu qofku ilaahay ilaaliyo
wax kasta uu qabanayo inuu yidhaahdo ilaahay talow muxuu ka odhanaya, xalaal baa ma xaaraan ba, ma dan baa ku sugan, ma ajar baa ku sugan, ma khayr baad ka helaysaa mise shar baad ka helaysaa. qofku intaanu wax qabanin inuu waxa kan arko, inuu ilaahay subxaana watacaala inuu taalacanayo arko. waxa laga yaaba qofka bini aadamka dunuubta markuu samaynayo inuu isdhaha hala dhuumo meelaan dadku kaa arkaynin xumaha ku samee. laakiin qofka ilaahay si dhaba qalbigiisu iimaanka uu u galay wuxuu rumaysay inaan meel lagu dhuntaa jirinba, adduunkuba inuu makshuuf iyo qaawan yahay. waayo ilaahay baa ku arkaya. mar haddii ilaahay ku arkayana kabtaa ma yeelana, yaad wax ka qarinba. mar haddii ilaahay uu ku arkayo subxaana watacaala meelaad ku dhuumato iyo meel lagu qarsoomaatoona ma jirto. sidaa ogeed waxaynu leenahay ikhwatii fi lcaqiida, mas'alada in nafta la tarbiyeeya waa masalo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay. waxaynu leenahay waa masalo u baahan naftaada intaad tarbiyeysay waxay ku xidhan tahay intaad alla ka cabsigaagu batay. sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. waxba aniga haysu ka ammaanina baa ilahay leeyahy subxaana watacaala, anaa og ka alla ka cabsada baa la leeyahy subxaana watacaala. cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay anaa og baa la leeyahy subxaana watacaala. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa aladi yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mid a maxay? ahlu taqwa. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa aladi yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mid a maxay? ahlu taqwa. ahlu taqwana waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay isdaahir yeelaan, isagoo raba qofku bukliga iyo shaxnimada, dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo. yani nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay, abuur ahaan bay nafta bini aadamka u jeceshay inay iyadu wax yeelato, cidna inaanay wax ka siinayn. alananiya, keligaa inaad wax yeelato wuxoo dhamin. laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyeyso, waa iyadaa lagugu itixaaba. walidalika inaad barto, ilahay baa qur-aanka muxuu ku leeyahy wauxdirat ilanfusu shux. nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey ba la yidhi gebigeedba. laakin maxaa kale ilahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun. ninka awoode ee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu, waayo naftaadu iyay ku bakhaylaysaa, aday kugu bakhaylaysa. waxnaad ururinaysa waad ka dhiban un adigu ma lihid, inan iyo inankii u hadhatoona danka ma lihid. adigu maxaad leedahay? waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horeeya, waxa aad daarta aakhira ku dhisataad leedahay. daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kuma lihid. waxaad ku leedahay maxay? daartaada aakhira waxaad ku dhisatay. cidda aad ku bakhaylaysaa waa isla adigii. waman yabkal fa inamaa yabkal calaa nafsihi. ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylaya waa maxay? waa naftaadii. idan waxaa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo. ilahay markaasuu leey wasayujannabuha alatqaa aladi yu'tii maalahu yatazakkaa. naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si ay isu daahir yeelaan. waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhan yihin. qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay. waana kaasi uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilahay uu ka bariyey. walidalik baa culamadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada, wixii ma'muuraat ee la farayna la yimaado oo sameeya. waxaan leenahay waxaynu u baahanay markaas inaynu dadaallo. iimaanku ama muctaqadka shay inaad caqiidaysataa wuxuu ku xidhan yahay inaad daliilkiisa garatid. daliilkuna ama ha noqdo daliil xisiyo la arkayo. masalan cadceedda inaad rumaysato inay cadceedi jirto miyaad u baahantay? mar haddaad maalin mar aragtay waa bes, wantaha alamr. waa daliil baad haysataa ishaada ah in cadceeddu wax muuqda ay tahay, waad rumaysa. laakiin waxaa la yidhahdaa akhlaaqiyaadku iyo dhaqanku iyo kobcinta naftu waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa. waxa la yidhahda waxay u baahan yihiin joogtayn. maanta marka lagu wacdiyo waad sacnaananaysaa. caawa markaad gurigii tagto waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho ilaahay ka baqatid. aroorta se waaga dambe markuu beriyo wixiiba midhba kama xasuusinid marka waaga dambe beriyo. walidalik baa soomaalidu waxay idhaahdaan
wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay idhahdeen iyagoo uga jeedan waa markaa hore lagu sheegayo uni wax dambe oo kasii dambeeya ma jiraan. maxay naftu u baahan tahay markaas? waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo, waxay u baahan tahay in la barbaariyo, waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican, oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan, oo lagu ilaaliyo tawxiidka. waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo, laga daahir yeelo amraad alquluubi wanufuus, xanuunada ku dhaca nafta, in nafta laga ilaaliyo dulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda, in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya, in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba. waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaasi gaalnimo, shirki, riyaa, nifaaq. waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon. naftu xub lburuuz, inaad muuqato bini aadamku iska jecel yihi, walow wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yidhaahdo aada soo baxdo, naftu waa iska jeceshahay, laakiin soo bixistu khayr ma leh. waxa khayr le qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhan yahay baa khayr leh. idan nafta bini aadamka ay shaytaanku hadduu kaa celin kari waayo khayrka, wuxuu isku dayayaa khayrka inuu ku derdersiiyo, adigoo khayrkii samaynaya haddana khayr bilaa ajara inuu kaa noqdo, adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhigo mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helinin. bay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa? waxaa ka mid ahaa buu nebigu yihi ku wax bixin badnaa, waxaa ka mid ahaa buu nebigu yihi ku qur-aan akhris badnaa, waxaa ka mid ah buu nebigu yihi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayo jihaad ku dhintay. saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nebigu yihi. sababta markii nebiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad, ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay? ilah habeen iyo maalinba waa anigii akrinayay buu yidhaha. waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad tilahayd alla yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris bado, dayntiina waa ti dadka ku yidhaahdeen. magacun baad ku dooraysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay, jaayisad kasta iyadaa qaadata, intaa un baad ka rabtay. dayntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana watacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin. kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxa uu yidhaahdaa ilaah waa anigii bixiyey wixii aada nimcay siisay. waxaa lagu yidhahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi, hebel gacantiisu waa nin faxala oo gacantiisu kala baxsan tahay. dayntiina lagu yidhi baa la yidhaha ila agtiisa waxba kuma lihid. kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhaha waxaad u diriraysay un in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaga soo dhici maayo. dayntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa. idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo, wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo, ku dhinac marsiiyo, oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo. idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino, inaad naftu way salkay taagaysaa iyo madaxeed hoos u celiso, ilaahay mutawaadic, ilaahay aada u dhul dhigto, walaalada aanay ka santaagin aada hoos u celiso, magac iyo maamuustoona aanay doonin aada u diido. naftu xuduudi nafs alanaaniya, anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso, wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee ay kugu qasbayso o dhan inaad u diidid. taasi waxay fudaydinaysaa marka in nafta la ilaaliya oo la tarbiyeeya. axad alculamaa ka mida raggii zuhaada ahaan jiray cabdillahi ibnu muxayrib baa loodhan jiraa la yidhi. waxa la yidhi wuxuu soo galay suuq oo dabeetana meesha laga garanaya wax kama iibsan jirin ba la yidhi, meel dad aan garanayn bu wax ka gadan jiray. markuu wax ka gatay nin oo ay isbaayaceen oo inta ga siiya waa kaayo oo la kala gata u ka dhaqaaqay, ayay qaar yidhahdeen war minaad garanay ninkaad wax ka iibinaysa? markaasa la yidhi uu yidhi ma imaan garanay. war waa cabdillahi ba la yidhi, sheekh cabdillahi waa ninkii aad wax ka iibinaysay, cabdillahi ibnu muxayrib. buu yidhi sheekh maxaad suu kay sheegi weyday buu ku yidhi. wuxuu ugu jawaabay inama nashtari biamwaalina walaa nashtari bidiinina. war markaan wax gadanaya bu yihi xoolahaygaan da wax ku gataaye diintayda wax kumaan gadanaynin. waa sheekh hebel in wax laygaga dhimo umaan socon buu leeyay, ee waxaan rabay markaan wax la gadanayn inaan xoolahaygu wax ku gatee diintayda ilaahay baan wax kaga doonayaa buu leeyay, inaan khalqiga wax kaga soo qaato kaga soo xogsado baan rabay. idan dadkii saalixiinta xataa waxay iska ilaaliyeen bimujarad xuduud nafs, waa hebel inuu wax ku helo ayuu iska ilaalinayay si aan waanay uga xumaanin ajarku ilaahay subxaana watacaala agtiisa ku leeyahy. idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badan tahay, meesha ay ku socotaana waa mahlaka, waa dhul khatara.
waxaa loo baahan yahay naftan hogaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawo jacaylka aad ka dhowrtid hawo jacayl wanaha nafsa can ilhawa ilahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi faama man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawa maxaa ilahay tilmaamay faina aljannata hiya alma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha nafsa can ilhawa waxay doontaba inaad diiddo albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay wakhaalif innafsa waashayطaana wacsihima war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa oo hadday isku kaadayaan buu yihi wain huma maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday shayطaan iyo naf isku kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan un meel khatarun bay ku wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan waxay doonto o dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay waxay doonto o dhan ba hadday kaa hesho waxaan kusoo koobayaa leeyahay nafta waxay u baahan tahay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana watacaala asmaa ilahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rubayntiisa maxaa kamid ah waxaa kamid ah inaad rumaysato ilahay inuu keliyihi waxaa kamid ah inaad rumaysato ilahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa maanta haddaad rumaysan tahay haddaad lacag weydo waxa laga yaaba in markiiba maskaxdaada uu kusoo dhaco kii aa isku reerka ahayd in hebel xoogaaga haystay aad qabatid markiiba maskaxdaada kaasa kusoo degdegaya laakin waxay ahayd qofka muslimka dhabtaa markiiba in ilaahay kusoo degdego war maad ilaahay baridid oo 2 goor sujuudid waxba waayimay siday kusoo degdegi lahayd qofku wuxuu u baahan yahay inuu garto ilaahay inuu qaniye haddii dhibi kugu dhacdo inaad sabirto inaad ilaahay makhluuqaadkiisa uga ashtakoonin waxaa laga yaabaa dadku marka dhibi qabsataba inuu bilaabo dayro iyo calaacal iyo war waxay qabsaday maogta iyo dhibta igu dhacday iyo balaayadana haleeshay iyo waxana soo gaadh yaad ka ashtakoonaysaa ilaahay naxariista badnaana waad ka ashtakoonaysaa makhluuqaan waxba haysana waad u ashtakoonaysaa waad ku akriyaysa muxuu ilaahay kaaga tari karaa kanaad wax u sheegaysa idan wuxuu u baahan yahay iimaanku qofku inuu xoogoobo oo aad tidhahdo inamaa ashkuu basii wa xuznii ila allah aada u ashtakooto ilaahay subxaana watacaala marka dhibi ku qabsato aad isweydiiso xaggee wax ka xumaade waxaa laga sheegay raggii hore selafka ahaa faraska uu fuushan yahay hadduu la turunturooday waxay odhan jireen talow xaggee maanta dembigaad samaysay lagaaga yimi yacni markiiba wuxuu arrinta ku celinaya ilaaha gacantiisa ay wax waliba ku jiraan maxaad xumaysa hadday wax kaa xun yihiin wax walba yaa haya dee ilaahay baa haya midaan waxba haysan maxaad ka dooni markaa xagga alle uka haddaad xanuunsanayso isaga fooda dhulka udhig oo habeen iyo maalinba bari oo albaabkiisa garaac isaga aad ka helaysa haddaad aqoon rabto isaga weydiiso isagaad ka helaysa haddaad caafimaad rabto ilaahay weydiiso isagaad ka helaysa idan nafta waa inaad ku rabaysaa inay atacalluq maca allah inay ilaahay ku xidhnaato waa inaad ku rabaysaa tawxiidka dhabkii waa kaa tawxiidku maaha macrifo qura unaad garato waan rumaysanay inuu ilaahay kelina yahay dunidao dhanna gacantiisa ay ku jirto arsaaqda inu isagu iskeligii laga baqo berri marka gaalku soo hanjabana aada baqato ilaahay subxaana watacaala haddana aad xaggan ka rumaysantay inuu keligii wax waliba gacantiisa ku jiraan idan waxaan leenahay waxaynu u baahanay tawxiidka aynu rumaysanay tarbiya inooga baahan yahay oo ah inaynu si camaliya si dhaqana aynu u bedello caqiidada aynu rumaysanay waxaynu u baahanay naftan inaynu ikhlaas ku rabayno iyo inay ilaahay keligii ku xidhnaato subxaana watacaala waxaynu u baahanay inaynu nafta barno asidqi maca allahi wa maca alkhalq inay run sheegto kunuu maca asaadiqiin inaynu runta taagnaano waxaynu u baahanay inaynu naftan barno alkhawf waalrajaa ilahay inay ka cabsato ilahay inay rajayso subxaana watacaala waxaynu u baahanay inaynu nafta barno alwarac wasabr waxa aan sheegayo o dhami waxaynu leenahay waa maqaamaadkii loo baahnaa in nafta lagu tarbiyeeyo si ay mid walba u gaadho waxaynu u baahannahay marka waxaan maxaa keena dariiq kaloo la maraa ma jire waxaa keena
adigoo isku daya nusuustii shareecadii soo degtay inaad fuliso. waxa keena adigoo salaada si fiican u tukada oo salaada waqtigeeda ilaaliya oo aad u dhowra oo tahaaro fiican ku tukada oo khushuuc ku tukada tilmaamaya inay salaadu tahay tanha can alfaxshaa'i walmunkar. ina salaata yani ilahay waxa uu tilmaamaya salaadu inay tahay ta nahyida maxay alfaxshaa walmunkar, qofka xumaha iyo munkaraadka o dhan salaada ka reebta. waayo salaadu markuu qofku istaago wuxuu rumaysay inuu ilahay hortaagan yahay, ilahay inuu la hadlayo subxaana watacaala, isaga inaad amaanayso leedahay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maliki yawm iddiin, inaad alle la hadlayso subxaana watacaala. waxay leenahay zakadaa barta, inaad wax zakayso, wax sadaqadaysato, wax la baxdo, wax caawiso. waxaan leenahay waxaa nafta tahiro oo kobciya inaad xaj tagto, falaa rafata walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaji, inaad ku dhaqanto. waxaan leenahay waxaa nafta tarbiyeeya wixii layna faray oo aynu si camaliya u gedino, wixii layna faray oo aynu ka dhigno dhaqan camaliya oo diin ah oo si dhaba inooga soo fula aynu ka dhigno. waxaan leenahay waxaynu u baahan nahay tarbiya tiro badan oo asalku ah mujaahada. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلهي wuxuu leeyahay kuwa xaggayga u dadaala u jihaatama ana ariiqa waa ku hanuuninaya baa ilahay leeyahay subxaana watacaala. idan nafta bini aadamkii way kortaa. waxa koriya baynu leenahay caqiidada fiican, waxa koriya baynu leenahay acmaasha saalixa, waxa si fiican u koriya baynu leenahay inaad la dhaqanto maxay mujtamac iyo bii'a fiican, dad wanaagsan inaad la noolaato. waayo asxaabta xune sharkaa haddaad la dhaqanto, qof cay badan haddaad raacdo waa dhib, mid shar badan haddaad raacdo waa dhib, mid salaada ka taga haddaad raacdo waa dhib. waa inay noqotaa bii'ada iyo environmentka kugu xeerane bii'a khayr leh, bii'a fiican. bii'ada fiican waxaa laga faa'iidaa maalintaad adigu daalan tahay walaashaada kale ayaa nashiita. qofka bini aadamkii mar kastaba ma firfircoona, mar badanoo naftu ay caajista ama daasho baa jirta, laakiin walaasha ayaa firfircoonay markay kula joogto iyadaa gacanta ku qabanaysa, hore kuu qaadaysa. maalinta iyadu daashanaadaa gacanta qabanaya. dadku khayrku isku gargaarsada. idan qofku inuu majaalis alkhayr u yimaado, meelaha khayrka lagu hayo uu xaadiro, dhulka wanaagga lagu hayo uu tago, waxay noqonaysaa naftiisu inay korayso, kobcayso. waa zaad, waa sahay naftu ay u baahantay. keligaa haddaad socoto waa daali, laakiin haddaad haysato sahay ama gaadhi ku qaada ama waxaad sii cunto ama dayurad ama waxaad fuusho, socodka uu kuu fududaanaya. waxyaabaha socodkaa fudaydiya, socod baad ku jirtaa in janno lagu socdo, asiraat almustaqiim oo janno taga. waxa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad dadka khayrka la raacdid, majaalista khayrka lagu haya inaad xaadirtid, meelaha wanaagga laga sheegaya inaad joogtid. waxa kuu fudaydinaya inaad adiguna isku daydo naftaada maalinle inaad ula dhaqantid. haddaad dukaan haysato oo aad seexanayso fiidkii waxaa laga yaabaa qof waliba xisaabtiisu xidha. maanta wixii laga iibsaday lacagtoo dhan buu tiriyaa, dhan buu dhigaa, weliba lacagtu kala saarsaaraa, wixii boqol iyo konton iyo shan iyo inba meel buu ku qoraa. wuxuu qoraa wixii dayn maanta uu bixiyey iyo dadkii uu lacagta ku yeeshay oo dhan, wixii uu lacag soo galay oo dhan, si fiican buu uxisaabtamaa. habeenkii wuxuu seexdaa markuu xisaabta xidho, isagoo garanaya wuxuu faa'iiday, wuxuu khasaaray, waxa dayn uga maqan, waxaasi oo dhan. waxa aad xisaabinaysa o dham waa ra'samaalkii dunawiga ahaa. bal ka waran ra'samaalkaagii dhammeeye cimriga ahaana, nolosha gebigeedaba waxaad ku leedahay waa sanadahan yar aad jirto ee 60 50 40 70 waa intaa ra'samaalkaad haysataa. hantida aad rogrogaysaa waa 70 sannadood ama waa 60 sannadood ama waa 50 sannadood. 50 sano waa inaad ku xisaabsanaadaan. markaad caawa seexanaysa waa inaad tidhahdaa war 24 saacadood oo sanado yaraayaan haystay baa tegay, 24 maxaan qabtay waa inaad isweydiisaa. maanta maxaan qabtay? 5 salaadood waan tukaday, intii kale xagee ku baxday? maxaa ii kordhay? aakhiradaydii maxaan dhisay? maxaan dambi iga dhacay? haddaad si fiican u xisaabtanto habeen walba markaad seexanayso
waxaad garan lahayd aroorta dambe waxaad ku kaakacayso iyo meeshaad u kacayso. waayo cimrigu waa wax yar. naf iyo shaytaan baa ku odhanaya waa wakti badan baa ku hadhay iska noolow. waa maalmo. qofka iminka 5 jirka maraya ka 6 jirka maraya labaduba nolosha way la yartay. way gebigeeda maalmo ah. maalmahaasi waxay u baahan inaad si wanaagsan ugu xisaabtantid wixii kaa tagay waxa ku hadhay inaad isweydiiso warta caawa hadday baxdaba soo noqon weydo maxaa tala ah. ilaan ilaahay baa quraanka wuxuu ku leeyahay nafta markay jiifsato waan qabanaaba ilaahay yidhi. dabeetana waxaa la yidhi tii waktigeed wax u hadhayna waa la soo daayaa tii kalena waa la hayaa. inay adiga talahaynayo tahay iyo inay tala soo daynayo tahay ma kala ogtid. ha iskaga talagelin inaad aroorta soo kici doonto. in badan baa intay seexataan aroortii dib usoo toosin. wax waliba way dhici karaan. sidaadaad isaga baktii kartaa, sidaadaa gurigu kugu dumi karaa, sidaadaa xabad seeraaro meelaha kasoo dhacday kugu dhici kartaa, sidaadaa danab dusha kaga dhici karaa gurigiina, sidaaday wax waliba waa dumi karaan, sidaadaad isaga dhiman kartaa. idan waxaa inaad ku xisaabtantaa warta caawa hadday dhammaato taadi maxaa kaa horeeya. qofku hadduu muraaqaba samaynayo oo wax kasta uu samaynayo uu ilaahay ka dhex arkayo subxaana watacaala, hadduu xisaabtamayo oo noloshiisa o dhan xisaabinayo, hadduu dadaalayo uu leeyahay arday markaasi aad wax dhiganayso sanad walba waxaad is leedahay shahaada soo qaatay. shahaada yar aad sheegaysaa waa maxay? waxaad ku xisaabtamaysa waxay 4 sano soo dhameey, 5 sano soo dhameey, 12 sano soo dhameey, 4 jaamacadan soo dhameey. waxaad xisaabinaysaa wixii aad dhamaysay. qofka muslimka waa inuu ku xisaabtamo war naftan intaad korisay. sanadkii hore 5 salaadood unbay tukan jirtay, imika halkay maraysaa? ma ku dartay sunankii oo dhan? sanadkii hore sunanka rawaatibta iyabay ka adkayd iyo salaadaha imika tahajudkii ma raacisay sanadka dambe? waa inaad xisaabtantaa. waa inaad isweydiisaa war ramadaan tan soo socota maxaan kordhin doonaa talow? maxaan ku kordhiyaa nafta? waa in shahaadada kuu kordhaa. aad aakhira ilaahay la hortagtid oo tidhaha ilahu inta baan adiga dartaa usoo sameeyey. shahaadadii iskuulka waa inaan laga fekerin iyo kalaaskan kasoo gudubta kalaaska kale aad gelaysaa keebuye. waa inaad ka fekertaa aakhirana sanadaasi tagtay sanada dambe waxaad biirinayso. idan waxaan leenahay tarbiyatu nafs. 2 shay haddaa ka adkaataan naftiinu way kobcaysaa. kow, aqoon ahaan inaad korodhid oo isku daydid waxa ilaahay kaa doonayo o dhan inaad fahamtid oo garatid. 2, dhaqan ahaan inaad korodhid oo isku daydid shalaydaada iyo maantaadu inaan isku mid kuu noqonin. shalay halkii aad joogtay inaad ku tala gasho maanta inaad ka ruqaansato, hore uga sikatid, hore uga dheeraysid oo aanad halkii shalay joogin. hadduu qofka muslimkii sidaa uu fakerayo oo horumarka uu ku fakerayo uu guulaysanayo, naftuna way tahaaroobeysa. naftu acmaasha qaarkood inay aqbasho way u kala jajabantahay. waxaa laga yaabaa dabcigaagu masalan dabci ahaan in ilaahay ku abuuray qof degan oo aan cadho badnayn. markuu nebigu ku yihi laa taqdab ha cadhoonin, waxaa laga yaaba adiga inaanay dhib badanba kugu keenin, waayo dabci ahaan baad deganayd oo qof waayeelo iska deganaad ahayd. saa daraaddeed markaad xadiiskiina sii fahamto waxaa laga yaaba inaad sii raasuktid oo aad qof aada u degan noqotid. laakiin haddaad marka hore qof sharaarad kulul ahayd oo cadho badan, taa nafteedana waa la tarbiyeyn karaa, waa la kobcin karaa. haddaad marto maxay wasaaisha lagu kobcinayo, wuxun bay la mid tahay. nafta noocaasi waxay kuula mid tahay waa maradii uskagu kaaga dhacay. maradu marka uskagu yeelato, midna marka biyaha lagu ridaba uskaga yar uu ka hadhaa, midna inaad saabuun mariso mooyaane uskagu kama go-ayo, midna saabuuntuna ma jarta bleach baad u baahantahay inaad kusii darto daawo kale iyo wax mariso. mid maca bleachta waxaa laga yaabaa un heer yar iyo un waxuun inay kusii hadhaan maradaasi aanay weligeed ka go-in. naftu waa nooc oo kale. xumaha markaad ka maydhayso waxaa laga yaabaa abuurkii ilaahay uu ka abuuray dhaqamada qaarkood markiiba inay qayb fududaato, qayb inaad durduro ku dhaafto. masalan qof iska hurdo fudud baa tahayba, haddaad tidhaha salaatuleyl tuko, waxaa laga yaabaa 3 habeen markaad kacdo naftaadu sidii saacadun inay iskalaba qabsatoon oo markay saacaddu 3 habeennimo maraysa ama 4 maraysa iyadoo cidina ku toosin inaad iska kacdo. laakiin dadku ma sinna, barq baa iska hurdo weyn oo aan hurdada ka kicin in la jiijiido mooyaane. wuxuu u baahan yahay kaasi inuu nafta tarbiyeeyo oo uu dadaalo. oo dadaalkeeda maxaa ka mid a? kow, inaad goor hore seexiso. haddaad isku og tahay hurdo weyni, asaad tidhaahdo waan soo jeedaya ilaa 11 habeennimo, dee haddaa ku talagalay inaad salaad subax tukan.
laakiin haddaad ku tala gashay intaad isku ogtay hurdaweyni asaad rabto inaanay salaadaa subax ku dhaafin dee waa inaad fiidka sii seexataa waa inaad 8 markaad cisho tukato 9 gogolata ayaad iska jiifsata si kastaad u hurdaweyntay haddaad 9 seexato waad ka kacaysaa 4 ama 5 marka waad soo toos karaysaa waayo in qof bini aadam seexdo oo ku filaato 7 saacadood aad soo hurday 7 markaad hurdayna naf kastoo hurdab weyni haddii la kiciyo way kacaysaa idan waxaan leenahay naftaada rabaynteedu dadku kuma sinna masaa'ilka qaarkood markiiba way kuu fududaanayaan qaarna way kugu cuslaanayaan saaxiibadaada kale qaar kalaa u fudud qaar kalaa ku culus idan wuxuu dadku u baahan yahay inuu isgargaarsado oo kaa hurdada fudud le kaa hurdada adag loo caawinaya kan dabeecadda kulul le kan dabeecadda qabow loo caawinaya naf walbana waa la rabayn karaa naf naar un la rabo inay gashaa ma jirto naf walba naar waa laga badbaadin karaa haddii ay yeelato maxay asaasiyaadkii loo baahnaa oo iimaankeedii qaadato akhlaaqdeedii qaadato dhaqankii samayso waxaa leeyahay markaa naftu waxay u baahan tahay mujaahada tarbiyada camalka la yidhaahdo wuxuu waxa kale kaga dhib badan yahay waxa weeyaan waa wax joogtayn u baahan iyo ilaalin waa waxaan maalin qura inta la fahmo un ku dhammaanin ee u baahan in la hayo oo la wado ilaa iyo inta uu ka gaadhayo halkii loo baahnaa sida awgeed waxaan leenahay waynu wada kori karnaa qof aan kori karini ma jiro qof aan khayr shaqayn karinna ma jiro waxaad kaloo ogsoonaataa khayrka dadku uma sinna dhanka aada ogtay inay naftaadu ku fiican tahayne ka horta isaga waa inaad sii badisaa si aad dadka ugaga dheerayso yacni dadka ilaahay qofba meel buu khayrka u geliyey saasaa ilaahay khayrka u tiro badiyey qof baa dagaal ku fiican iyo jihaad iyo kaasoo ilaahay kaa meeshaasi u geliyey mid baa cilmi iyo wax dhigis ku fiican oo ilaahay kan xaggaasi u geliyey abwaab ulkhayr way tiro badan tahay albaabaad ka gasho ma waayeysi qof baa ku fiican inuu dadka caawiyo oo kabuka soo booqdo oo ka liito taageero oo cilmi badanba ma leh laakiin xooggiisa alla u barakeeyey dadka inuu caawiyo masaakiinta inuu wax taro mid baa ilaahay u barakeeyey maxay aqoontiisa iyo cilmigiisa oo inuu kaa wax garanayo alifka u dhigo oo kii garanayo u saxo oo ka qur-aanka baranayo uu sii sheego ilaahay dhankaasu ka geliyay subxaana watacaala mid baa ilaahay gacantiisa u fudaydiyo hanti haysto qof walba muslimo u baahan ba wax siin karaya idan weligaa khayrka naftaadu meel ay ku dheerayn kartaa jirta horta halka ayaan lagaaga dheerayn halka aad isku ogtay inaad u jilicsan tahayna isku day inaad nafta tarbiyayso oo kobciso si aanay u soo gaadho halka ugu hooseysa kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nafta bini aadamka ahi waa in la rabeeyo tarbiyadeeduna waa tarbiyo wakti badan u baahan waa tarbiyo ku salaysan baynu odhan karnaa halkuu tilmaamayey buusiri gabayga buusiri yani burdaa la yidhahda qaybo badan oo aada u qurux badan oo fiican buu leeyahy wuxuu ku tilmaamayay burdihiisa qayb ka mid ah wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calaa xubi الradaaci wain tuftimhu yanfatimi culana naftu buu yihi waxay la mid tahay ilmo yaroo caruura ilmaha caruura buu yihi haddii naaska lagu daayo kama go isagu iska nuugaya haddii se laga gooyo markii laga gooyoba uu ka go'i karaa uu ka maarmi karaa idan ilmuhu waa intii adigu aad naaska nuujiso haddii laakiin naaska laysaga daayo isagu iska shaqaya naftu waa sidoo kale buu leeyahy waa sida caruurtaasun bay naftu la mid tahay haddaad adigu rabto inaad naaska ka goyso waad ka goyn kartaa buu tilmaamaya idan waxaynu u baahanay inaynu naftan aynan kusii daynin waxay jeceshay inaynu ilaalino oo sidaa korkiina u ilaalisaan waxaa laga yaabaa inaan qofkiina lagala dardaarmin korkiisa suu ilaalinayo qof waliba inuu yaqaano uskaga saa laysaga maydho saa loo dhayo nafta xino iyo cusburba saa loo mariyo saa loo ilaaliyo waxaasoo dhan qof waliba inuu yaqaanaabaa laga yaabaa laakiin waxaasoo dhami waa jidhkii sariyo jasadkiiba ku saabsan yihi ee meesha cusbur iyo saliid iyo xinaba u baahani waa quluubta u baahan in la nadiifiyo la maydho oo uskaga rasmiga ah laga maydho waa qalbiga iyo nafta kuwa u baahan kuwa maydhistooda aan ku dadaalo wallahu aclam wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh mustafa bal waxaad nooga warantaa lacagtan deynta ah ee hay-aduhu bixiyaan sida caadiga ah taasi oo yaalaaba dumarka loo qaybiyo oo la amaahiyo
كلمة واحدة بالله يروح إلى هي ليدي سيامة شرط وخير إلى هي ليدي سيامة شرط ضعفاء إلا عاوية مساكين نعم فمن الدين يكسبت أنا عاوي ما هينو 12% فنت أبدو صارا بنقية الدنيا ما قاعدة 12% ممكن بالله بيه طبعا الربا يعني سلام تين كافر بقول يكون تلو ربا لنا شن بقول كه waxay la mid tahay boqolkiiba 2 riba bangiga caadiga ah dad wax ka daysata boqolkiiba 2 riba ma saaro idan waa xogsi kale meesha ku jira uun karsoo xogsi tagay laakiin si kastaba ha noqotay de waxaan shariica ku banaanay weeyaan dumarka waxaan leeyahay de waa hooyada iyo walaasha iyo taan qabuun bay la mid yihiin ilaahay laga cabsado xaqiina wuxuu ku jira idinkoo diintiina raaca wadana waxaan leeyahay xaq wuxuu ku jira iyadoo diinta la raaco mujtamaca oo dhan markaasi idina cid dulmi mayso wallahu a'lam سؤال موضوع كي رفق لكن ولا ينبغي مدة وحسكن ندري ديمقراطي قوى محيا ما ديمقراطية الديمقراطية واحد كولا كلام يسمونه ملاينية وقاب نولات كم إذا قاب نولات ولا بني آدم قوة أقماعي ما أنت الدنيا كل نولي وقاب شيء يهون أصل كيسو هي وحلا إذا هذا صحية قلد مجره وحلا إذا هذا حق إيه باطل مجره وحجره وحلا إذا مجورتي ماينورتي يعني waxa weeye in keen leedin baray dadku xurriyada ra'yi baa la siiyay xurriyada kada baa la siiyay waa jirta laakiin anaan bal wajigeeda labaad sharxo wajiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakiin waxa jira majority waxa xaq weeyaan kuma mancismo waxa ku mancismaya 51 leh madal raga fuula haday boqolkiiba 50 cod helaan iyaga xaq leh صحيح كما مراديد وسيداوده مراديد معناه waxa weeyaan yurub waxa isku waafaqday diimo isku waafaqay weyday culture isku waafaqay wax kasta kale isku waafaqay waxa isku waafaqeen in waxa kale dhan laga tanaasulo hatta ardayga marka la train gareynayo iskuulka dhigta inaga waxa laga yaabaa macalinku haduu ilaa waxa soo baxayna tiraawo macalin sida waxa lagu train gareeyay inaad xaq iyo baadil ka rumaysanto inaad sax iyo qalad ka rumaysanto ardayga yar yurub class-ka fadhiya marka uu su'aasha la weydiiyo wuxuu ilaa waxaan u malaynayaa sida way xaq uma lahayn inuu ilaa sida cid xaq u leeyahay ma jirto waa sida waana tiraa waxaan u malaynayaa sida waxaan filayaa inay caynkaata idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku ay kooda opportunities bay leeyihiin furas islaag ayay leeyihiin oo aad wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhahdaan xaggaan xuquuqdiisa sootan dastuurada iyo ay jiraan qaanuunka iyo oo soo gebigiisaba lama bedeli karo dastuurka haddaad boqolkiiba 70 baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo doorto qaanuunka gebigiisa waa homosexual baad ka dhigi kartaa ma dastuurkaad u bedeli kartaa oran kartaa waxaan homosexual ahayn xaq uma lehna waddan ku noolaadaan سيجا قانون كافل إذن أيديا كذا ما يسوي حوي يعني ما تشيره حقيقة باطل واحد تشيره 51% لينكي قوية كنتن هلا هدي لقى